hooyo Sagal Maxamuud Saalax waa hooyo la dhibaataysan wiilkeedan yar oo muddo 4 sano nabar maskaxda ku yeeshay waa wiil aan dab iyo saxaradiisa toona ka beydhayn oo hin joogta aan leh si taxadir leh ayay habeen iyo maalin gaadhka uga haysaa jiif iyo joog uma ogola mana haysata cid ka reebta ama la dhaqaalaysa sida ay hooyo Sagal noo sheegtay sayigeeda hore ayay u kala tageen waxay ummadda muslimiinta ah gaar ahaan inta afka Soomaaliga ku hadasha ay ka codsanaysaa in alla dartii ilmaheeda yar loo soo badbaadiyo loona soo kaalmeeyo walaal ka qayb qaado samata bixinta wiilka yar waxa laga yaabaa in alle $1 oo aad bixisay inuu alla caafimaad ugu soo celiyo adigana oo alle ku magan geliyo maalinta banka qiyaamo la joogo walaal wixii tabarucaada adigoon yareysanayn ugu dir lambarkeedan saadka ah waxay iga xanuunsanaya inaan ka yar wuxuu xanuunsanaya muddo 4 sano ah 4 sano waan sidoo dhakhtar baa la marayay dhaqaatiirtii aan inta la marayay marka dhakhtar Gaboose oo ugu dambeeyay wuxuu igu yiri wax laale wax loo qaban karaa ilmaha ma jirto iskaan buu mariyay iskaankii markuu mariyay madaxu maxay haytay nabar ku leeyahay buu qaybta bidixda maxay haytay ma hadlo waan la dhibaataysanahay saxaradiisii buu ku noqonayaa kaadiisii buu cabay hadaan saad u taagnayn habeenkiiga ma seexanayo wuu qaylinayaa wuu cararayaa maxay haytay dhakhtarka warqadihii Gaboose waan u diray gabadh halka Turkiga joogto oo tiri bal hadeen aan dhakhtarku u yiraahdo waxbaan u qabanayay in kale waan gudbiyay dadna xalay ugu waxa maxay haytay qalliin baa wala qalaya qarashka lagu qalayana waa qarash ah gaadhay $9 ummadda muslimiinta ee muslimka waxa ka codsanaya ilaahay dartiina iga soo caawina ilaahay baa caafimaadka bixiya sidaan ilmaha yar caafimaad ugu raadiyo isaga mooyay 8 kale ayaan haystaa caruura aabihii waan kala tagnay waxa laale wuxuu ku ogeeyay ma jirto aniga dhibaataysan ummadda muslimka ee walaalahay waxaan ka codsanaya inay soo caawiyaan dal iyo dibad meel kasta jooga